السلام عليكم. كتاب sideed ku noqon kartaa la xiriiro wanaagsan qof dadka si wanaagsan oo la xiriiri karo dhinaca hadalka. waa xalqadii koobaad ee kitaab aan soo akhriyay oo aan si kooban ugu soo gudbin doono kutubta aan leeyahay wayna anfici ee aan soo akhriyay. kutubta aan u arka in dadka walaalahay ay wax ka faa'iidayaan faa'iidana noo dhammaanteen ee aan soo akhriyay ayaan waxaan samayn in aan soo koobo ama qodobada ugu muhiimsan aan ka soo qaadanno si ay faa'iidada dadka dhan u wada gaarto. kutubta aan xalaqooyinka noocan ku soo gudbin doonana waxay ahaan doonaan kutubta la xiriiro horumarinta nafta, dhiirigelinta nolosha, arrimaha noocaas oo kale, nasiixooyinka dadka khubarada ay u jeedinayaan dhalinyarada iyo dadka soo korayo, qof kasta oo raba inuu horumar gaaro uu wax ka faa'iidayo. kitaabka aan maantayto xalaqadan ugu horreeya ku qaadanayno magaciisa waa sideed ku noqon kartaa la xiriiro wanaagsan. magaciisa asalkeena waa how to be a great communicator. sideed ku noqon kartaa la xiriiro wanaagsan dhinaca la xiriirka dadka, la hadalka. waxaana qoray nin lagu magacaabo Nindo Copin. waxaa adag in kitaab intaan la eg lagu soo koobo dhowr daqiiqo, laakiin waxaan soo qaadanaynaa insha Allah qodobada ugu muhiimsan kitaabka. kitaabku wuxuu ku bilaabayaa sidan: la xiriiritaanka, in aad dadka la xiriiri taqaano, adeegsan karta kelmadaha wanaagsan, hadalkaaga cad yahay, la fahmayo. waa waxa ugu muhiimsan ee casrigan aan noolnahay, zamankan aan noolnahay loo baahan yahay. tusaale, markaan leenahay hebel waa qareen lawyer, waxa ugu muhiimsan ee uu leeyahay waa in uu yaqaano la xiriirka dadka, in uu hadli karo, in qadiyad loo wakiishay uu ka dhaadhicin karo maxkamadda iyo garsooraha ugu sarreeya, in uu hadalkiisa cad yahay, fahansan yahay kelmadaha uu adeegsanayo, hadli karo. waa qareen. maanta muhiimadda ugu weyn ee ragga ugu sarreeya shirkadaha waaweyn sida Google, Microsoft iyo shirkadaha kala duwan, waxa ugu muhiimsan ay qabtaan waa in ay shirarka waaweyn ee caalamka oo dhan laga daawanayo, shirkadahaasna qabtaan, ka hadlaan, suuq geeyaan shirkadaha, mashaariicda waaweyn u sharaxaan. kitaabku wuxuu leeyahay markaan dhalannay wixii ugu horreeyey ee afkeenna ka soo baxo waa oohin, taasoo ah cabbirid aan cabbirayno jiritaankeenna. canuga markuu dhashuu yar yahay ma hadli karo, waddada uu adeegsado si uu dadka ula xiriiro waa oohin. hadduu gaajoodo wuu ooyaa, haddii uu xanaaqsan yahay wuu ooyaa. waxa uu ku cabbira ama luqadda uu adeegsado waa oohin. wuxuu leeyahay qoraagu, inta aanan socodka baranin waxaan barannaa la xiriirka sida oohinta, qosolka, ta'taada, hooyo, aabbo, kelmadaha noocaasoo kale oo dhammaantood ah xiriir canug uu labadiisa waalid la xiriirayo iyo dadka ka agdhow. waxaan kitaabka ka soo qaadanaynaa 5 qodob oo muhiima oo ah furayaal kaa dhigayo la xiriiro wanaagsan. waa 5 fure oo kuu furayo waddada inaad noqoto la xiriiro wanaagsan. qodobka koobaad, rabitaanka. tusaale, haddaad leedahay canug yar ama kula dhashay laakiin aanan hadli karin, rabana canugaas shokolaato ama nacnac, tusaale ahaan wuxuu awoodaa in uu cabbiro waxa uu rabo asagoo waddooyin kala duwan adeegsanaya, sida inuu farta ku taagoo kale, taasoo ah in qodobka ugu muhiimsan ee la xiriirku yahay in uu qalbigaada ka soo go'ay in aad la xiriirto shakhsiga aad la hadlayso. carabku wuxuu tarjumaa oo hadal u beddelaa waxa qalbiga ku jiro. markaad qof la xiriirayso, dhammaan soo jeedkaada, wacyigaada qofkaasi. xilliyada qaar markaad la hadlayso qof aanan hadalkaada rabin ama xitaa adiga aad mashquulsan tahay, niyadna u haynin, idinma dhex mari karo wada xiriir micno leh, sababtoo ah rabitaan ma jiro dhinacaaga ama qofkaas kale dhinaciisa. tusaale kale, qof haddii aad la hadlayso adigoo gacanta ku haya mobile, waxna u sharxaaya laakiin mobileka ku mashquulsan, qofkaas idinma dhex mari karo xiriir
lagu tilmaami karo xiriir wanaagsan oo dhinaca wada xiriirka hadalka sababtoo ah rabitaan buuxo dhinacaada kama imaanin. moobaylka xir, jeebka geli, si toos u istaag, qofka wejigiisa fiiri, kadibna hadal waxa aad rabto u sheeg. qodobka labaad ama furaha labaad, fahan arrinka, fahan qadiyadda, fahan waxa aad ka hadlayso. wuxuu leeyahay qoraagu wax aadan fahansanayn waxa ay yihiin kama hadli kartid. haddii tusaale ahaan qof kuu soo bandhigo in aad la taliso, in aad arrin kala taliso, isku day in aad fahanto, si fiican u fahanto waxa uu rabo inaad kala taliso, si idiin dhex maro wada xiriir wanaagsan oo midho dhalla, natiijo fiicanna uu kaa helo qofkaas kaa dalbaday tashiga. haddii aad dadka kelmad u jeedinaysoo kale, waa inaad fahansan tahay waxa aad ka hadlayso waxa ay yihiin, in aad soo diyaarisay ugu yaraan si fiican u soo diyaarisay aad ka hadli karto. iskuulka weli macallin ma kaa dalbay in aad sharaxdo mas'alo xisaabeed ama fiisigis ama noocay doonto ha ahaato, kadibna hadalka ma kaa soo bixi waayey ama ma u muuqatay qof aanan waxba kala ogayn. ceeb aad leedahay ma ahan, ama inaad tahay qof ebera, waa in aadan fahansanayn waxa uu kaa dalbay macallinka inaad sharaxdo. haddii uu macallinku ku weydiiyo su'aal xisaabeed oo kale laakiin aadan fahansanayn oo ku dhaha faahfaahin ka bixi, waxaa dabiici ah in aad aamusood garan weydo waxaad ku hadasho, taasoo ah in qofka uusan awoodin inuu ka hadlo waxuuna aqoonin. aan ogaano in kitaabku yahay sideed ku noqon kartaa la xiriiro wanaagsan, ma ahan la xiriiro keliya, qof la xiriiro oo iska hadlaya keliya ma ahan. dadka aftahanada ee ka hadlo mimbarada sida TED Talks, kuwa khudbadaha caalamiga jeediyo, ma ahan dad naga caqli badan, nagama caqli badno, keliya waxay sameeyaan waxa ay ka hadlayaan ayay aad u diyaariyaan, macluumaad badan ka haystaan, juhdi iyo dadaal ayay geliyaan. waxaa laga yaabaa qof in lagu dhaho kale isbuuca soo socda maalinta Jimcada ayaad waxaa jeedin kelmad 5 daqiiqo, kadibna isbuucaasoo dhan uu sii tababarta ku soo celceliyo sidii uu u jeedin lahaa kelmad uu fahansan yahay waxa ay tahay oo uu soo gudbiyo. 5 daqiiqood isleedahay waaw, qofkan caalami weeye, qof aan caadi ahayn, laakiin waa qof soo diyaariyey, fahansanna waxa uu ka hadlaayo. furaha saddexaad ama qodobka saddexaad, lahaanshiyaha skills ama mahaaraad macquul ah. wuxuu leeyahay qoraagu in aad hadalkaada dadka gaarsiiso uma baahno inaad xoogga saarto naxwaha ama garaamarka, oo hadalkaadu noqdo hadal waaweyn oo angegan yaabisa sida inaad dhagaxyo laqlaqaysoo kale. taas micnaheedu ma ahan ayuu leeyahay in hadalkaadu luuqad ahaan uuna saxsanayn oo aad ku hadasho hadal qaldan, laakiin muhiimaddu waa inaadan xoog saarin inta badan garaamarka iyo naxwo hadalka waaweyn ee adag. Churchill wuxuu ahaa ra'iisul wasaare Ingiriiska soo maray aftahana, weliba qoraaweyna, gabyi jirayna, suugaanyahan weyn ahaa. waxaa la sheegaa inuu qiimo weyn siin jirin, qiimama uu siin jirin naxwaha iyo garaamarka Ingiliishka. mar ayaa la sheegay asagoo khudbad jeedinaya inuu galay qalad dhinaca garaamarka naxwaha. markii loo sheegayna wuxuu ku jawaabay, ma jecli Ingiliishka noocaas oo kale, ma jecli in aan inta badan qiimo weyn siiyo garaamarka. mawduucan mar ka yara dhawaajiyey aan ku yara celinno. dadka markay dhagaysanayaan khudbad jimcaha maxay inta badan u hurdaan, u halaaqoodaan, u caajisan yihiin hadalka khatiibka ugu soconin? sababta waa in khatiibku ku hadlaayo hadal aanan la isticmaalin, hadal rasmi ah oo naxwo u badan, shid u badan, hadal waaweyn oo qofka masjidka ku jira inta badan uusan fahmaynin. xitaa kuwa carabiga u dhashay ma fahmaan inta badan khatiibka wax uu ku hadlo, laakiin waxaa jira rag khutaba oo arrinkaas fahmay oo isku daya in ay dadka si toos ah ula hadlaan oo hadalka noocaasi waaweyn naxwaha u badan ka soo yara degaan. haddii aad hadda khatiib tahay oo aad khudbad jamcada akhriso, bal tijaabi, xilliyada qaar tijaabi in aad khudbadda ay u badnaato hadal dadka u dhow ay fahmi karaan, dadka masjidka ku jiro hadal ay fahmi karaan, wax ay yaqaanaan. waxaana la isku raacay in muhiimadda koobaad ee khudbad jamcadu ay tahay in dadkaas masaajidka soo galay wax uun faa'iide loo sheego, waxay ahaadaanba hadal ay fahmayaan inaad u sheegto, xataa qisayr inaad u sheegto, hadal uun ay fahmayaan, aakhiray adduuna faa'iido waa. wuxuu leeyahay sidoo kale waa in aad taqaano farqiyada u dhaxeeyo cidda aad la hadlayso, adigoo adeegsanayo
kelmadaha munaasabka ku ah cidda ku hortaagan haddii aad la hadlayso kale qof mas'uul ah noocu doonaha dabcan wuxuu iskaga baahan yahay in xoogaa la yara ixtiraamo wuxuu rabaa in sacaadatul wasiir mudane madaxweyne mudane guddoomiye kelmado xoogaa maqaam sare leh waa haddii aad rabto in uu idin dhex mari labadiinna xiriir caadiya hadal caadiya toose inaad wada xiriiri kartaan dhinaca wada hadalka sidoo kale markaad la hadlaysa carruur adeegsa luuqad u dhow caqligooda kelmado ay fahmayaan haddaad carruurta oo la hadasho sida dad waaweyn oo kale dabcan idinma dhex mari kara labadiin adiga iyo carruurta hadal lagu tilmaami karo xiriir wanaagsan la xiriiro wanaagsan ma noqon kartid waa inaad carruurta kula hadashaa hadal ay fahmayaan luuqadda ay fahmayaan hooyooyinka waa cajiib ciyaalka yaryar waxay kula hadlaan si u eg sida ay u hadlaan luuqadda ciyaalka ayay u adeegsadaan waxaa laga yaabaa inaad u malayso in hooyooyinka ay isciyaalaynayaan oo isdhaahdo saad u hadlayso hooyo waa max waxay iska dhigaan ayagoo hadlayoo kale yani hadal noocaasoo kale waa shay aad iyo aad u wanaagsan waa fitrad ilaahay ku abuuray hooyooyinka sidoo kale markaad waalidka walaalaha la xiriirayso waa inaad ogaato in farqi u dhexeeya ayaga iyo dadka kale in markaad hooyadaa la hadlayso kale si kastood u weyn tahay aad ku hadasho hadal dabacsan wanaagsan hadal dabacsan oo hooyooyinka waxay jecel yihiin dadka ay dhaleen si kastay u waaweynaadaan inay isu ciyaaleeyaan hooyada markaad wax ka dalbanaysa xitaa haddaad tahay nin 50 jir oo kale inaad dhahdo hooyo waxaasi sii waxaa ka fiican adigoo adeegsadoo kale hooyo waxaasaan u baahana hooyooyinku way jecel yihiin erayada noocaasoo kale muhiimadda qodobkan waa inaad taqaano kelmadaha ku habboon qofka ku hortaagan hadduu yahay mas'uul hadduu yahay labadaada waalid hadduu yahay walaalaha saaxiibada ardayda qof kasta wuxuu leeyahay kelmada ku habboon in aad taqaano arrimaha noocaasoo kale qodobka afaraad laylis tababar ku celcelin nin waxyaabo badan sameeyey ayaa la weydiiyey caqligan xageed ka keentay dadka ma ka caqli badan taha aad guulahan ku xaqiijisay wuxuu ku jawaabay guushan aan gaaray waa 99% dadaal iyo dhidid iyo ku celcelin halka soo harayna waa mawhibo wuxuu leeyahay buuggu haddaad rabto in aad noqoto la xiriiro wanaagsan hadalkiisa saamayn yeelanayo si joogta ah u tababaro qolkaada dhexdiisa xitaa haddii aad keligaa tahay iska dhig in aad khudbad jeedinayso kale ku celceli aad ayaan u wada fahmaynaa dhammaanteen waxaa laga wado laylis iyo ku celcelin inaad istababarto qodobkaas intaas ayaan ku joojinaynaa aanu gudubno qodobka shanaad ee ugu dambeeya qodobka shanaad sabar qof ayaad rabta tusaalahaan inaad la xiriirto adigoo mawduuc kale ama waxa weydiinayo laakiin wuxuu adeegsaday kelmado keeni kara inaad xanaaqdo haddaba haddaad xanaaqdo ood si kulul ugu jawaabto haba yaraatee labadiinna idinma dhex mari karaan wax la yidhaahdo wada xiriir wanaagsan ama la xiriiro wanaagsan ma noqon kartid waa in aad u sabartaa qodobkan ilkaha ku qabo qodobka shanaad oo in aad sabarto in qofka kula hadlaya aad la xiriirayso oo aad rabto in aad xiriir dhinaca hadalka hadduu yahay qof aad su'aal weydiinayso kale in aad u sabarto radu ficilkiisa uu saamayn kugu yeelanin saxaafadda caalamka ee waaweyn ee professionalka ee ixtiraam kale ma qaataan wariye xanaaqo wariye haddii qof loo diray inuu waraysi la soo yeesho mas'uul wax weydiiyo dabcan mas'uuliyiin waxaa jira kelmada aanan wanaagsanayn oo laga xanaaqo qofka wariyaha indhaha ka saarayo laakiin wariyahu hadduu xanaaqo hay-adda uu ka shaqaynayay maalinkaas ayaa iskugu dambayso waxaa lagaa rabaa xitaa qofkaas aad su'aasho weydiinayso hadduu kugu candhuufo in aad su'aal weydiiso sababtoo ah waxa aad u imaaday waa inaad xiriir dhinaca hadalka la yeelato qofkan sidoo kale haddii aad tahay macallin oo ardada waxa aad u sharxayso kale oo ay hadlaan buuqaan u sabar qiso yar u sheeg oo aad buuqa iyo mawduucaas ku ilowsiiso kadibna macluumadii aad rabtay inaad gaarsiiso si wanaagsan u gaarsiiyey xalaqadii ugu horreysay ee kitaab aan soo akhriyay intaas ayay ku eg tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu